Assalaamu calaykum. Maanta waxaan sameynaynaa lisaanya. Waxaan ku bilaabay hilib digaag ah iyo xawaashyo lagu darayo oo ah masaala, basbaas, maxaan ku rahdaa maraq digaag iyo saliid saytuun. Intaas ayaan isku walaaqaya. Kadibna intaas ayaan isku umateynayaa. Markuu bislaadana waan gedinayaa. Waxaan hadda dalacaynaa suugadii ahayd qudaarta sida basashii iyo barbaroonigii iyo tuuntii iyo shiishiidkii. Intaas isku soo sameynayaa. Kadibna yaanyo mirooley baan ku daray. Intaa kadib waxaan ku daray wax yar oo maraq digaaga iyo wax yar oo masaala ah iyo wax yar cusbo ah. Hilibkii chickenka oo gaar u sameeyay iyo suugadii qudaarta ahayd oo gaar u sameeyay waa isku dhex darayaa. Kadibna baastadii oo aan soo kariyay ayaan waxaan rabaa inaan korka ka saaro. Korka markaan ka saaray kadib maraqii cheese ayaan korka uga firdhin doonaa. Markaan cheese-ka ku dhammaystiro waxaan rabaa inaan geliyo ovenka ilaa iyo 30 daqiiqo meelahaas ayaan ovenka ugu jiri doonaa. Kadibna waxaa soo bixi doonta cunto aad u macaan oo sharaf badan baa soo bixi doonta. Like iyo subscribe saar.